Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax oo dhawaan soo gaaray wadanka Jarmalka ayaa xaflad soo dhaweyn waxaa loogu sameeyay magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka. Xafladda oo ay soo agaasimeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka ayaa lagu soo dhaweeyay Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax oo kamid ah ugaasida beelaha Soomaaliyeed. Xafladda oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka odayaasha, saraakiil hore, dhalinyarada, culimada iyo haweenka ku nool wadanka Jarmalka ayaa waxa ay si weyn ugu amaaneen ugaaska doorka nabadda iyo dib u heshiisiinta uu ka qayb qaadanayo arrimaha Soomaaliya. Xildhibaan Dr. Cali Xaaji oo kamid ah xildhibaanadii ka hadlay madashii lagu soo dhaweynayay Ugaas Maxamed ayaa waxa uu si weyn ugu amaanay doorkii nabadeynta ahaa ee ugaasku ka geystay deegaanada Puntland gaar ahaan xilliyadii doorashooyinka. Ugaaska markii doorashada ay soo dhaweyd Puntland waxoogaa khilaafna jiray iska ogeydeen cabsi la qabay ayuu wafdi balaaran kaga yimi degmadiisii markaasuu noogu yimi Puntland isagoo arrintaa runtii dhexda u xidhay meel wanaagsanna dhigay jazaahullahu khayran. markaasaa uu isbaranay saasaan ku ogaanay markaa inuu yahay asadiiq waqtu shidda. sadiiqu waa ninka ku garab istaaga markay adag tahay xaaladdu. ugaaskana waxaan odhan lahaa ugaas waxay ka muuqataa xafladdaadu qiimaha iyo sida lagu jecel yahay dadka halkan fadhiya waa Soomaalida iyo cid ka maqlay. Sheekh Ibrahim oo ku hadlayay magaca culimada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Jarmalka ee ka qayb galay xafladda lagu soo dhaweynayo ugaaska ayaa ka soo dhaweynta ugaaska waxa uu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Jarmalka inay ka qayb qaataan howlaha samafalka ah. war xafladan ma ka dhigna xafladii ugaaska misaanka lagu iibiyay maash ugaas xafladii ugaas oo misaanka lagu iibiyay oo kaasil inay noqoto ugaaskana maalinta qiyaamo oo ay u korto. munaasabadda lagu soo dhaweynayay ugaaska waxaa sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha, dhalinyarada, haweenka iyo saraakiil hore oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. anoo ku hadlaya magaca ciidamadii badda admiraaladii Soomaaliya waxaan leeyahay oo Darmstadt ku nool tafadal soo dhawow baan ku leeyahay waxaa imika u timid shacabkii oo aan wax kala xiran ayay jirin sida uu soo wada dhex fadhiro oo meel walba lagu sugayo ayaan ku soo dhaweynaya. markaas soo dhawow ugaas Maxamed ugaas Axmed ugaas Faarax soo dhawow walaal ku hadlaya magaca hooyooyinka iyo jaaliyadaha dhan oo Jarmal iyo gabdhaheena. ugaas soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow gabdhahaagii oo ku jecel hooyooyinka ku jecel gacmo furan ay kugu soo dhaweynayaan. madashaan joognayo maamulkeena sare madashaan joognayo maamulkeena sare dhammaan Soomaali way ka midaysan tahay dhammaan Soomaali way ka midaysan tahay allaha guuleeya madaxdeena saay ka sare soo dhawow Darmstadt annagoo niiga nimid magaalada Baaya oo 4 saacadood soo soconay ugaas soo dhawow dhammaan martida sharafta leh Soomaaliyeed meel walba isugu yimid aad iyo halkaad u mahadsantihiin safarkiina iyo waqtigiina iyo imaanshihiina aad noo soo bixiseen oo aad noogu timaadeen soo dhaweynta Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax. taas waxay ka marakacaysaa Ugaas Maxamed inuu yahay nin dhalinyaro nin ugaaskii la jecel yahayna nin ummadda Soomaaliyeed iyo beesha ugaaska u yahayna sharaf iyo cizi iyo karaamo ku leh. Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax oo ugu dambeyntii soo xiray xafladda ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay midnimada ummadda Soomaaliyeed isagoo sidoo kale aad u amaanay horumarka ay Soomaalidu ka sameynayaan wadanka Jarmalka. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa Soomaali waa walaal waa isku diin waa isku dhaqan waa isku luuqad wax aynu ku kala duwannahay haba yaraatee midna ma jiraan. ilaahay subxaanahu wa tacaala baana mideeyey oo mid naga dhigay. walaalayaal qof walba oo halkaan yimid qalbigiisa ha ku qabto walaaltinimo iyo ehelnimo iyo Soomaalinimo
إمانتها إبننا إلهي سبحانه وتعالى هاي كأنه مدي من نبذينا يشرف كنا سياد كلها كنتي وحال اللوبي كريم جالية الجرماني وقت غير أو كوان أو أتكنت معدين دلكان يهرمك أتكسب إنسان وحال كوبي كرماها وأنا ذيك جماعة علينا وحال أوجاي برشدي صوماليين ودلكي جفتي وحال أوهيسان ugaas Axmed ugaas Faarax ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Damashq ee dalka Jarmalka iyadoo ugaasku si weyn u mahadceliyay soo dhaweynta lagu sameeyay magaalada Damashq Maad Cabdi Maxamed Marshaakir telefishinka Kalsan TV Jarmalka